Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waxaan ku soo qaadan doonaa cashar ka hadlaya Statement of Financial Position oo ah financial statement-ka kii labaad ee loo diyaarinayay external userska inagoo hore u soo diyaarinay Statement of Comprehension Income oo isaguna external userska loo diyaariyo si lagu ogaado income statement-ka. Haddaba casharkan Statement of Financial Position waxaan ku soo qaadan doonaa sidii business-kaagu position-ka amba halka uu marayo sawir kooban looga bixin lahaa ayaa loo diyaariyaa. Statement of Financial Position-ku waxay leedahay qaacido lagaga shaqeeyo oo isleega amba hab loo maro marka la diyaarinayo. Inta aanan bilaabin diyaarinta Statement of Financial Position-ka, waxaan doonayaa in aan isii ogeysiiyo amba isii xusuusiyo qaacidada lagaga shaqeyn doono sidii loo diyaarin lahaa. Waxa weeyaan qaacidadu Asset equal Liability plus Capital oo macnaheedu yahay asset-ka company-ga yaalla waxay la mid tahay deynta lagu leeyahay oo loo geeyay capital-ka amba wixii shirkadda lagu maalgeliyay. Example-kii George ee xilli xisaabeedkii la soo xiray 14 bishii April waxaa lagu diyaarin doonaa marka ugu horeysa asset-ka waqtiga dheer yaali kara si cost-kii lagu soo iibsaday looga jaro depreciation-ka amba duugowga xilligii la isticmaalayay wixii ka go'ay si loo helo imika qiimaha uu taagan yahay. Non-current asset macnaheedu waxa weeyaan asset-iga yaali kara sanad wixii ka badan amaba sii shaqeynaya sanad wax ka badan. Imika non-current asset-keena waxay noo yaalaa motor vehicle. Marka laga hadlayo ma aha wax ganacsi amba la iibiyo ee waxa weeye wax lagu shaqeeyo company-gu intuu jirayo oo qiimo dhac ku yimaado qiimihiisii hore si looga jaro duugowga ku dhacay si loo ogaado qiimaha imika uu taagan yahay ee saxda ah. Non-current asset-ga imika waxay noo yaalaa 7,000. 7,000 waxa weeye cost-kii markii hore lagu soo iibsaday wax qiimo dhaca oo imika trial balance-geenii lagu soo sheegay ma jiro waayo xisaab xidhkeenu wuxuu ku koobnaa 2 week gudahood. 2 week gudahoodna wax badan isma beddelayaan. Accumulated depreciation-keenu waa 0. 7,000 marka 0 laga gooyo waa 7,000 markaa weli current value-geenii alaabteena waxa weeyaan intii hore 7,000. Marka balance-ka cost-keena alaabteenu waxa weeyaan 7,000. Accumulated depreciation-keenu wuxuu noqonayaa eber. Current value-gu alaabteenu imika qiimaha ay marayso waxay noqonaysaa 7,000. Current asset haddaynu nimaadno current asset-ka waxaa la yidhaahdaa hantida amba asset-ka ay shirkaddu leedahay ee sanad gudihii isku bedbedeli kara sida alaab la soo iibiyay oo haddana la sii iibin doono. Current asset-geena waxaa ugu soo horeeya inventory item-kii, waxaa inagu xigayaa trade receivable-kii, waxaa inagu sii xigayaa cash at bank amba cash-kii inoo yaalay bangiga. Inventory haddaynu ka bilaabno waa closing inventory-geenii lagu soo xiray xisaabtii hore. Closing inventory-geena evaluation-ka aynu ku soo sameynay waxaa layna siiyay 7,000. 7,000 ayaan qaadan doonaa. Waxaynu dhigi doonaa total closing inventory-gii oo inoo leekaa 7,000 oo aynu ka soo wareejinay closing journal entry-gii aynu sameynay markii hore. Trade receivable-ka haddaynu nimaadno trade receivable-keenu waxaa 6,000. 6,000 waxaynu ka soo qaadanay trial balance-gii aynu soo diyaarinay. Trade receivable waxaynu ku arkaynaa 6,000 inay inoo yaalaan. 6,000 waynu ka qaadnay waxaynu geynay
financial statement-ka aynu diyaarinayno. Cash advance haddaynu nimaadno, cash advance waxaa inoo yaalaa 43,550 oo aynu ka soo qaadanay trial balance-ga aynu hore usoo diyaarinay. haddaynu dib ugu noqno, trial balance-geena waxaa inoo yaalay bank account balance-giisu inoo leekaa 43,550 oo dhinaca financial statement-keena geynay imika. Total current asset-keenu waxa weeyaan 7,000 oo loo geeyey 6,000 oo loo sii geeyey 43,550 oo totalkeegu noqonayo 56,550. Total asset-keena haddaynu soo saarno waxay noqonaysaa inaynu isku geyno total non-current asset oo loo geeyey total current asset oo inoola mid ah 63,550. halkaa waxaynu soo saarnay imika total asset-keeni. Total asset-keena waynu la soo baxnay. imikana waxaan la soo bixi doonaa capital-keena. Capital-ka waxaa lagu soo saaraa opening capital oo loo geeyey profit oo laga jaray drawings. Opening capital-ku waxa weeye maalgashigii business-ka intii lagu maalgeliyey oo loo geeyey profit intii shirkaddu ay macaashtay oo laga jaray drawings-kii laga saaray amba dib looga qaatay. haddaynu dib ugu noqono trial balance-geena, capital-ku wuxuu inoo leekaa 50,000. 50,000 waxaanu geyni doonaa financial statement-kan diyaarinayno si aynu ugu record garayno. Capital-keenu wuxuu inoo leegyahay 50,000. 50,000 ayaan record garayn doonaa. 50,000 waxaan ku dari doonaa net profit-keenii aynu helnay oo isagana aynu ka soo qaadan doono statement of comprehension income amba income statement-kii aynu soo diyaarinay. Net income-keenii aynu soo diyaarinay wuxuu inoo leegyahay 6,550. 6,550 waxaan ku record garayn doonaa statement of financial position-ka aan diyaarinayna. Trial balance-geenii waxaynu ka soo qaadanay net profit amba profit ah 6,550. 6,550 waxaynu geyn doonaa capital-keena. waxaynu ka jari doonaa drawings-keena oo inoola mid ah eber, waayo wax drawings-a oo amba lacag dib looga qaatay business-ka muu jirin. haddaba capital-keena haddaynu la soo baxno, capital-ka oo loo geeyey profit-ka oo laga jaray drawings-ka, capital-keenu isugeyn wuxuu noqonayaa 50,000 oo loo geeyey 6,550 oo laga jaray eber oo la mid ah 56,550. Total capital-keenii haddaynu la soo baxnay, imikana aynu ka shaqeyno si aynu la soo bixi lahayn total liability-geena amba deynta shirkadda lagu leeyahay. Total liability-ga waxaa lagu helaa non-current liability oo loo geeyey current liability. Non-current liability-gu waxa weeyaan liability-ga amba deynta la deymiyo shirkadda amba business-ka waqti sanad ka badan amba waqti dheer. Non-current liability ay shirkaddu gashay imika ma jirto, markaa waxaynu soo qaadan doonaa in non-current liability-gu inoola mid yahay eber. waxaynugu xiga current liability. Current liability-gu waa liability-ga amba deynta ay shirkaddu gasho sanad amba sanad wax ka yar. Current liability-geena waxaa inoo yaalay trial balance-geenii aynu soo sameynay oynu ka soo qaadan doono trial payable oo inoo leekaa 7,000. 7,000 waxaynu geyn doonaa balance sheet-keenu diyaarinaynay amba statement of financial position-keenii trial payable oo inoo leeg 7,000. Total liability-geenu wuxuu inoola mid yahay non-current liability oo eber ah oo loo geeyey current liability oo 7,000 ah.
oo inoo leeg 7,000. Si aynu u soo saarno statement of financial position-ka aan diyaarinaynay, waxaan isticmaali doonaa qaacidadii aan hore u soo sheegay ee ahayd asset equal liability plus honorary equity. Marka assetkeenu wuxuu inoola mid ahaa 63,550 oo la mid ah capital oo loo geeyey liability. Bal aynu isku geyno iyadan. Haddii aynu isu geyno capitalka aynu haysano oo ah 56,550 haddii aynu u geyno liability-geena oo ah 7,000 waxay soo baxaysaa 63,550 oo la mid ah asset-gaynu haynay. Markaa iminka qaacidadii amba isleegtii asset equal capital plus liability way isleekaatay. Sidaas waxay nagu dhammaaday casharkeenii sida loo diyaariyo statement of financial position amba balance sheet-ka.